kulan wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeena qubanaha maanta qodobada aan idinku haynana waxa kamid ah dawladda Kanada oo sheegtay in 3 sano ee soo socota ay u baahan tahay 1 milyan oo muhaajiriin ah wargeyska New York Times oo qoray in hay'adda FBI-da ay baarayso in Donald Trump uu si qarsoodi ah ula shaqeeyay Ruushka gabadha baxsadka ahayd ee Sacuudiga u dhalatay oo gaartay Toronto kadib markii ay Kanada ka heshay magangalyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilownay dawladda Kanada ayaa sheegtay in ay doonayso in ay qaadato 1 milyan oo muhaajiriin ah oo dheeraad ah 3 sano ee soo socota warbixin sanadle ah oo wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha Kanada Axmed Xuseen uu u diray baarlamaanka ayuu ku sheegay in qaxootiga iyo dadka muhaajiriinta ah ee muddada dheer soo galay Kanada ay qayb ka qaateen kobcinta iyo xoojinta wadanka Kanada Axmed ayaa intaas ku diray in guulaha mustaqbalka ee Kanada ay ku xirnaan doonaan in dawladda ay xaqiijiso soo dhaweynta iyo dib u dejinta qaxootiga Axmed Xuseen ayaa Kanada qaxooti ahaan ku tagay isaga oo jiray 16 sano xilligaas oo uu ka soo cararay dagaaladii sukeeye ee Soomaaliya bilowgii 90-maadkii si Kanada ay dadkeeda ugu soo darto 1 milyan oo qaxooti ah ilaa sanadka 2021 ayaa waxay noqon doontaa in ay soo qaadato qiyaastii 350,000 oo ruux sanadkan 2019 iyo sanadaha 2020 iyo 2021 wargeyska New York Times ee dalkan Mareykanka ayaa qoray in hay'adda FBI-da ay furtay baaritaan ay ku eegayso in madaxweyne Donald Trump uu si qarsoodi ah ula shaqeynayay dawladda Ruushka wargeyska ayaa qoray in saraakiisha hay'adda FBI-da ay aad uga walwaleen habdhaqankii madaxweyne Donald Trump markii uu shaqada ka eriyay madaxii hore ee hay'adda FBI-da James Comey wargeyska ayaa qoray in hay'addu ay bilowday in ay eegto in Trump uu ka shaqeynayay wax maslaxadda Mareykanka ka hor imanaya saraakiishaas ayaa wargeyska u sheegay in kadib markii Comey la eriyay bishii May 2017 uu iyaga walwal geliyay markii ay arkeen in Trump uu sheegay in eriyada Comey ay la xiriirto baarista Ruushka madaxweyne Trump ayaa ka falceliyay warbixinta New York Times fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka saakay ayuu waxa uu ku yiri wow waxaan ogaaday in New York Times si baaba'aysa ay qortay in hogaamiyihii hore ee FBI-da ee musuqmaasuqa ku shaqeynayay iyo kuwii kale oo la eriyay ama lagu khasbay in ay shaqada ka tagaan ay sababo xun dartood aniga baaris igu bilaabeen iyagoo aanan wax sabab ah iyo wax caddeyn ahaynin kadib markii aan eriyay James Comey beenaalaha ahaa waa musuqmaasuq weyn ayuu qoray madaxweyne Trump howlihii dawladda Mareykanka ee qayb ahaan xirnaa ayaa maanta oo Sabti ah galay maalintii 22aad taas oo ka dhigaysa xilligii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka howlaha dawladda ayaa u xiran muran ka dhashay lacag uu madaxweyne Donald Trump u doonayo in lagu dhiso darbi laga taagayo xadka koonfureed ee Mareykanka howlahan xayiran oo soo bilowday 22kii bishii December ayaa hal maalin dhaafay kii dhacay sanadka 1995 oo socday 21 maalmood xilligaas oo madaxweyne Clinton uu talada dalka hayay howlaha dawladda ee xaniban ayaa cuuryaamiyay 9 wasaaradood iyo dhowr dirsan oo hay'adood oo dhammaan dawladda dhex raacsan dad tiradoodu gaarayso 800 oo kun oo shaqaalaha hay'adahaasi ah kuwaas oo aanan helin lacagtii mushaarka ahayd ayaa dibadbaxyo sameeyay isla markaana dalbaday in xanibaadan daba dheeraatay la soo afjaro dadkaas dibadbaxayay ayaa sheegay in Congress-ka iyo aqalka cad aysan dadka dhibanayaal uga dhigin siyaasadaha ay isku hayaan Trump ayaa jimcihii shalay abuuray shaki ah in uu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah iyo in kale taas oo la xiriirta darbiga laga dhisayo xadka koonfureed ee dalka arrintan ayaa sharci dejiyaasha ku keentay in ay sugaan tallaabada xigta ee madaxweynaha uu qaadi doono madaxweynaha ayaa sheegay in uu xaq u leeyahay inuu Congress-ka garab maro oo xaalad degdeg ah uu ku dhawaaqo hase yeeshee uu Congress-ka siinayo waqti dheeraad ah inkasta oo aanu xilli go'an uusan cayimin dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay hirgelinayso qorshaha ay ciidamadeeda uga soo baxayso dalka Suuriya
afayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga oo lagu magacaabo Sean Robertson ayaa jimcihii shalay shaaciyay in howlgalka ka soo saarista ciidanka Mareykanka ee Suuriya uu u socdo qaab ku saleysan iska warqabid iyo wada shaqeyn dhammaan waaxaha dawladda Mareykanka. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay in Mareykanka iyo Turkiga ay heshiis ka gaari karaan habka lagu badbaadin karo jabhadda Kurdiyiinta Suuriya marka Mareykanka uu ka baxo dalkaasi Suuriya. Pompeo ayaa la hadlay dhigiisa Turkiga waxaana uu sheegay in heshiis ay arrintaasi labada dhinac ay ka gaarayaan uu macquul yahay iyadoo taasina ay saamixi doonto in Turkiga uu difaacdo dalkiisa iyadoo sidoo kalena uu faraha ka qaadayo Kurdiyiinta aanan halista ku ahayn. Pompeo ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in Kurdiyiinta Mareykanka ka barbar dagaalamaya aanan laga cidlayn doonin. gabadha u dhalatay Sacuudiga ee qoyskeeda ka baxsatay kuna xanibnayd dalka Thailand ayaa goor dhaweyd ka degtay magaalada Toronto ee dalka Canada. dawladda Canada ayaa gabadhan siisay magangelyo kadib markii ay muddo toddobaad ah ku jirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Bangkok iyadoo sheegtay in ay ka baqayso in qoyskeeda ay dilaan haddii ay ku laabato Sacuudiga. Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in dawladdiisu ay qaxooti ahaan u aqbashay Raxaaf Mohamed Al-Qunun. wasiirka arrimaha dibadda Canada Chrystia Freeland ayaa soo dhaweysay Raxaaf Mohamed Al-Qunun iyadoo ku tilmaamtay gabar geesiyad ah. Raxaaf ayaa ka soo dhuumatay qoyskeeda xilli ay dalxiis ku joogeen dalka Kuwait iyadoo xilligaas u duushay magaalada Bangkok ee dalka Thailand. waxay diiday in dib loogu celiyo dalka Kuwait iyadoo isku soo xirtay qol ay ka deganayd hotel ku yaala garoonka diyaaradaha. kiiskeeda ayaa noqday mid caalami ah kadib markii ay ku faafisay sheekadeeda baraha bulshada. aqbalaadda ay Canada aqbashay ayaa waxaa laga yaabaa in uu sii murjiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee awalba liitay ee ka dhexeeya Sacuudiga iyo Canada. ugu dambeyntiina dalka Indonesia wiil yar oo lixaad la oo arday ah ayaa iskuulka ku taga isaga oo gacmaha ku soconaya. muuqaal wiilkan oo lagu magacaabo Holig laga soo duubay ayaa si weyn u qabsaday baraha bulshada. aroor walba wiilkan oo 8 jir ah ayaa 6 kiiloomitir garguurasho ku taga iskuulka u dhigto isaga oo hadda ku jira fasalka 3aad. waxaan doonayaa inaan noqdo shaqaalaha dabdamiska dhaqtar ama cirbixiyeen sidaas wuxuu wiilkan u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. wiilkan ayaa sanadkii hore la kulmay madaxweynaha Indonesia Joko Widodo si uu uga hadlo mustaqbalka waxa uu ku haminayo. haatanna waa wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo jooga Washington. kooxda kubadda cagta San Jose ee ka dhisan gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa qaadatay ciyaaryahan Soomaali ah oo lagu magacaabo Siciid Xaaji. Siciid Xaaji waa 19 jir ku dhashay xeryaha qaxootiga ee Kenya kadibna u soo haajiray dalkan Mareykanka. Siciid qoyskiisu waxa ay degeen gobolka New Hampshire ee waqooyi bari ee dalkan Mareykanka. ka hor inta aanu ku biirin kooxda San Jose, Siciid waxa uu u soo ciyaaray xulka qaranka Mareykanka ee da'doodu ay ka hooseyso 15 jirada, 17 jirada iyo waliba 19 sano jirada. Siciid ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kooxdiisa cusub, waxaana uu yiri waan ogahay in shaqo adigi ay isugayso, laakiin diyaar baan u ahay culayska. waxa uu intaasi ku daray diyaar baan u ahay wax walba. dhanka kalena kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa la kulantay guuldarro xanuun badan kadib markii ay u martisay kooxda West Ham United kulan ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska. gool uu dhaliyay ciyaaryahan Declan Rice ayaa sabab u noqday in kooxda Arsenal ay la hoyato guuldarro, iyadoo toddobaadkan uu u noqonayo mid ay tahay inay iska ilaawaan. qaar ka mid a ciyaartoyda kooxda Arsenal ayaa u muuqday kuwo daalan, tiyo ay jirto in laacibkoodii qadka dhexe ee Aaron Ramsey uu diiday in uu u saxiixo kooxdiisa Arsenal heshiis cusub, waxaana qandaraaska uu kula jiro uu dhacayaa bisha Juun ee sanadkan. guusha ay gaartay kooxda West Ham United ayaa u soo dalacsiisay kaalinta 8aad ee kala horeynta horyaalka waddanka Ingiriiska. kooxda West Ham ayaa waxaa layliya macallinkii hore ee kooxda Manchester City Manuel Pellegrino,
kaasi oo hore ugu soo guulaystay horyaalka waddanka Ingiriiska intii uu ku sugnaa kooxda Manchester City. xubinteennii cayaarahana waa naga intaana waxaa ku eg daawadayaal barnaamijkeena qubanaha maanta. inta aan dib ugu kulmi doono barnaamij midkaan la mid ah maalinta berrito ah waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.